mawliid iyo Mika'iil waa walaalo ku dhashay meel baadiye ah kuna soo barbaaray. markii muddo la joogay ayaa xoolahoodii iyo hantidii ay haysteenba waxa cagta mariyay abaar dadkoo dhan saameysay. waxa ay ku qasbanaadeen in labadoodii waalid iyagiiba ay magaalada u soo haajiraan. markii magaaladii ay yimaadeen ma lahan wax xirfad ah oo ay ku shaqaystaan oo ay noloshooda ku soo dabaraan, laakiin waxay ku qasban yihiin inaysan cidna u fariisanin oo gacanta horsanin. waxa ay bilaabeen hardanka ila dagaalanka nolosha si ay u badbaadiyaan qoyskooda, gaar ahaan hooyadood iyo aabahood. Mika'iil oo ahaa wiilka reerka ugu weyn waxa uu ku qasbanaaday inuu keeno fikir ay noloshan wax kaga bedeli karaan. waxa uu walaalkii Mawliid ka dhaadhiciyay in ay qasab tahay in midkood uu aado xirfad uu wax kaga baranayo halka midka kalena uu sii shaqayn doono reerka iyo isagana sii dabari doono. midkaasi xirfadda aaday marka uu wax barto isaga ayaa la wareegi doona nolosha reerka, kan kale oo harayna wuxuu dib u bilaabi doonaa xirfad kale si labadoodaba muddo gaaban gudahood ay u gaaraan isku filnaansho kagana duunaadaan dadka intooda kale oo ay u helaan nolol wanaagsan, waalidkood iyo naftoodana ku dabari karaan. Mawliid oo arrintaasi wax hadal aan ka soo celin ayaa walaalkii waxa uu ku yiri waa okay, waana saxanahay in arrintaasi ku dhaqaaqno, laakiin waxa ay la tahay maadaama aan aniga ka yarahay in ay ku habboon tahay in aniga bilaabo koorsada koowaad. markii aan soo dhameeyay ayaad adigu dib ka bilaabi doontaa. Mika'iil arrintaasi wax farqi uma lahayn, wuuna aqbalay. walaalkii Mawliid waxa uu noqday qofkii koowaad ee loo diro barashada xirfadda. Mika'iil inta walaalkii uu ku jiray waxbarashadii waxa uu habeen iyo maalinba u soo jeeday sidii uu uga qabtari lahaa fartan uga saari lahaa wax alla wixii uu u baahan yahay oo u fududayn kara barashada xirfaddaasi. nasiib wanaag waa uu ku guulaystay. Mawliid isaga oo aan arkin wax dhibaato ah waxa uu ka soo qalin jibiyay halkii uu xirfadda ka baranayay. maanta waa nin ku shaqeeya xirfaddiisa lana wareegay noloshii reerka oo idil. sida ay ku heshiiyeen walaalaha wada dhashay waxa Mika'iil markan laga doonayaa inuu la yimaado xirfad isagana uu barto si uu uga baxo rafaadkan adag ee maanta reerka ku soo dabaray una gaaro isu filnaansho. Mika'iil wuu dhaqaaqay waxa uuna soo helay xirfad ka wanaagsan tii uu soo bartay walaalkii Mawliid. markii uu soo laabtay una soo sheegay walaalkii xirfadda uu soo helay nooca ay tahay, waa uu aqbalay. waxaana go'aan lagu gaaray in barita wixii ka dambeeya Mika'iil ku dhaqaaqo barashada xirfaddaasi. Mawliid waxa uu bilaabay inuu ku shaqeeyo xirfaddii uu soo bartay oo reerkii noloshoodii wax uga bedelo. Mika'iilna waxa uu ku biiray koorsadii. 3 bil markii la joogay ayaa Mawliid waxa uu bartay gabar. gabadhaasi aad ayuu u jeclaaday, wuxuuna go'aan ku gaaray inuu guursado. nasiib darro intii ay heshiiskii guurka ku jireen ayay gabadhii waxa ay ka wareysatay Mawliid reerkooda iyo xaaladooda inta ay ka kooban yihiin iyo sida ay u kala shaqaystaan ruuxa ay nolosha ciddu ku tiirsan tahay. Mawliid waxa uu sheegay inay yihiin laba walaalo ah iyo waalidkood oo kaliya. qofka reerka u shaqeeya uu yahay isaga, xirfad uu soo bartay intii uu baranayay walaalkii u shaqayn jiray, haatanna walaalkii xirfad barasho kale uu jiro isaga uu reerka u shaqeeyo. gabadhii oo arrintaasi aad uga xumaatay waxay ku tiri doqon miyaa tahay, xoolo miyaa tahay, aawa caqligaaga iyo kartidaada iyo raganimadaadii. nin ayaa wax barasho jiro baranaya kaana weyn, war muu shaqaysto waxna barto. adigana xirfaddan iyo shaqadan ay haysatid maad noo ururisid lacagtan, guri noo iibisid, gaari noo iibisid, nolol fiican samaysano, mustaqbalka carruurteena ka fikirno. maxaa ku daba dhigay Mika'iilkan aad sheegayso iyo waxaas? Mawliid waxaa indhaha tira jacaylka oo gabadhan u qabo. waxa uu iloobay abaalkii loo galay iyo garab istaagii uu sameeyay walaalkii Mika'iil. waxa uu garwaaqsay hadalka ay gabadha u sheegayso. wuxuu u yeeray maalinkii dambe walaalkii Mika'iil, wuxuuna u sheegay maanta wixii ka dambeeya inuusan u awoodin wax lacaga uu kaga bixiyo xirfadda uu baranayo, kuna qasban yahay in uu noloshiisa ku tashado, shaqaysto. Mika'iil oo arrintaasi la yaabay aadna uga naxay weydiiyey sababta ka dambaysa arrintaasi. waxa uu ku jawaabay Mawliid, niyahow waan weynaanay, waxaana ku qasbannahay inaan reero samaysano. suuragal ma aha kooraskaaga oo ilaa muddo sanad iyo ka badan socon doona inaan sii daba taagnaano. niyahow shaqayso, dadku way shaqaystaan, anigu waan shaqaystaa. duurka gal, koorsadana baro, kartidaada kaasho. Mika'iil wax uu sameeyay iyo jaanis kale u bannaan ma laha. waxa uu ka codsaday walaalkii Mawliid hal arrin oo keliya. walaalow waxaan kaa codsanayaa oo keliya arrintan inaadan hooyo iyo aabba u sheegin.
guurso noloshaada ku filnow in aan kooraskii wada iyo inaanan wadin inaad kharash iga bixiso iyo inaad iska daysa intaba hooyo iyo aabbaha u sheegin wixii aad u awooddood siin jirtayna niyow sii arrintan mawliid wuxuu uga jawaabay sidan miika'iil walaalow waa sax waana kaa ballanqaadaya inaan hooyo iyo aabbo toona u sheegi doonin arrintan laakiin waxaad ogaataa saaxiibow aniga iyo adigaba hooyo iyo aabba xaq ayay nagu leeyihiin keligay ma biili karo waan guursan rabaa wax badan ma bixin karo waa ku qasban tahay inaad hooyo iyo aabba dhinacaada ka garab istaagto ugu dambayntii miika'iil wuxuu ku qasbanaaday in uu shaqeeyo kooraskiina sii wato hooyadii iyo aabbihii waxa uu u heli karana ku dabaro taas waxa ay ku keentay inuu aad u gaajoodo rafaado boggiisu isku dhago indha madoobaado si uu u gaaro hadafka uu leeyahay miika'iil waxa uu sii watay xirfaddiisii laakiin ninkii mawliid ahaa wuxuu dhexda ka galay nimco barwaaqo waxa uuna guursaday gabadhii uu jeclaa waxa uu ka wada tegayba reerkii iyo meesha ay degganaayeen wuxuu magaalada gees ka dhistay guri yar dukaan yar ayuu ka samaystay nolol cusub oo farxad leh ayaa halkaasi uga bilaabatay gabadhan oo aad u xumayd waxa ay ku guulaysatay inay ninkeedii mawliid ahaa ka jarto hooyadii aabbihii walaalkii mawliid maanta waa go'doon waxa uuna iloobay xaqa ay ku lahaayeen hooyadii iyo aabbihii iyo abaalkii uu u galay walaalkii nimcadan maanta uu haystay xirfaddan uu ku shaqaysanayo ninkii soo baray oo walaalkii ahaa waxa uga tegay duur cidlo ah su'aashaan dhammaanteen isweydiinaynaa waxay tahay gabadhan maxay ka faa'iidaysaa maxaa dan ahay ka leedahay ujeedkeedu muxuu yahay marka ay laba walaalo ah kala jartay waalidkiina ka reebtay ninkeeda soo ma awoodin inay intaasoo dhan isku xirto farxadna u noqoto guriga tiirkii uu ku taagnaa ay noqoto la wareegto hantida oo idil farxad lagu wada noolaado walaalahana ay isku soo dhawayso waalidkana gacanta ku hayso laakiin bal aan aragno ujeedkooda muxuu yahay muddo gaaban gudahood waxaa gurigii mawliid yimiday gabadha walaalkeed abtigeed iyo hooyadeed waxay u sheegtay inay xoolihii ka soo dhammaadeen baadiye ku noolaan waayeen kuna qasban yihiin inay iyaga la noolaadaan mawliid arrintaasi waxba kama dhihin maanta reerku waxaa soo dulfuulay reer kale haatan ayay bilaabaysaa fulinta qorshaheeda waxay ninkeedii mawliidahay ka dhaadhicisay walaalkeed in aysan suuragal ahayn inuu dul saarnaado waa inuu ku wareejiyaa dukaan hantina siiyaa si uu isku filnaasho u gaaro mawliid kama shakin arrintaasi waa uu sameeyey haddana waxay u soo jeedisay fikir kale oo ah abti inuu yahay waalid xaqna ku leeyahay habaarkiisuna khatar yahay isagana in meel loo raadiyo isagana waxaa lagu wareejiyey beero uu lahaa si uu noloshiisa u dabarto gabadhii waxa ay haysataa guulo qayb ka mida hadafkeeda mawliid wax badan ma fahansano reerkiisii kama warhaayo walaalkii meel uu ku dambeeyey meel kale ma oga magaalada ayuu gees kaga jiraa mana raadiyo iyagana sooma raadiyaan maalinkii dambe ninkii mawliid ahaa waxaa looga yeeray maxkamadda markii maxkamaddii uu tegay waxaa jooga xaaskiisii walaalkeed abtigii hooyadeed iyo abukaata ay wadato waxaa lagu soo eedeeyey in gabadhana uu sixray afduubay daawo iyo bakti uu siin jiray intaana uu xoog ku haystay carruurtan uu dhalana uu xaaraan kaga dhalay mawliid waaga ayaa ku baryay walaalay war waxaanad sheegayso waa maxay war waxaan maxaa ka jira war ilaahay ka cabso soo isma guursan soo xaaskayga ma ahayn caddayntii wixii dhanna waa la hayaa xaakimkii waxa uu ku yidhi hadal inaad gabadha halkan kula hadasho kuma bannaana aniga ila hadal caddaynta aad sheegayso oo ah inaad gabadhan qabto keen halkeed ku guursatay warqadihii guurkana la imow waa diyaar ayuu yidhi mawliid wuu isku kalsoon yahay waxa uuna u soo cararay gurigii nasiib darro ma oga wax guriga ka dhacay wax alla wixii dukumiinti ah ee guriga yiille oo idil mar hore ayaa gacanta lagu dhigay wax guriga yaalla haba yaraatee ma jiraan halkan qof meeshan fur boorsadan soo jiid armaajadan kala tuur bofsareed soo seeda fiiri wax yaallaaho ma jiraan waa meeshu maxaa ii dhiibatay maxaa iga tagtay mawliid waxaa ku baryay waagii isaga oo naxsan warwarsan wax uu sameeyana garanaynin ayaa waxaa dib loogu soo celiyay maxkamaddii markii la weydiiyey wixii caddaymihii laga sugayna
wuxuu sheegay inaysan waxba oolan guriga xaaskan uu qabayna ay wixii oo dhan qaadatay. garsooruhu waxaasuu kama yeelin, waxaa lagu xukumay xabsi dheer, waxaana loo wareejiyey hantida uu lahaayo idil iyo intii soo hartayba gabadhii, walaalkeed, abtigeed iyo hooyadeed. Mawliid noloshii uu soo dhisayay intaasoo fara badan, waalidkii iyo walaalkii uu ku gacan saaray dartood waxa uu caawa u hoyday xabsiga. waxaa u bilaabatay nolol cusub uusan weligii ku xisaabtamaynin kuna fikeraynin. xabsiga waxaa ku jira dad dambiilayaal ah, qaarkood dad soo dilay, wax soo dhacay, soo kufsaday, dhibaato fara badan soo geystay. waa miskiin aan waxbana geysan marka laga reebo xaqa uu waalidkii iyo walaalkii ka galay. ma oga waxa ay noloshiisa ku dambayn doonto inuu sidoo ahaan doono. waxa uu gees ka fariistay xabsigii, waxa uuna bilaabay inuu dib u soo xusuusto noloshiisii iyo meeshii uu soo maray. waxa uu dareemay in dhibkan haysta oo dhan uu yahay xaqii uu ka galay waalidkii iyo walaalkii. waxa uu ku cataabayaa isagoo aan maanta wax talaa gacanta ku hayn, ilaahayow cafi waalidkay iyo walaalkayna, ilaahow rabbi raxmaanu ii soo celi. wax kale uu samayn karaaho ma jirto. noloshiisii oo idil halkaas ayay ku soo gabagabowday, mugdi iyo madow aan meelna looga baxa lahayn ayay ku soo dhammaatay. dhanka kale mikaa'iil waxa uu ku nool yahay haatan nolol aad u fiican, farxad fara badan leh, reer iyo carruurba leh. laakiin nasiib darro waxaa hooyadii aabbihii bay u dhinteen, naxdintii iyo murugtii ay ka qaadeen wiilkoodii Mawliid ahaa oo meel cidlaa kaga tegay. hadafka iyo ujeedka qisadeennu waa in aan weligeen wax kastoo inagu dhacaho aanan fududaysan xaqa ay nagu leeyihiin waalidkeen, iskuna daynaa inta aan kari karno inaan gudanno. in aanan iloobin abaalka walaalaheen, saaxiibadeen iyo inta nagu geedaaman ay noo galaan oo aanan noqonin abaaldhaan. waa in aan nolosha cusub ee aan samaysanayno ka fikirnaa ka hor inta aanan dhexgelin, iskana ilaalinaa wixii suuragal ah ee noo keeni karaa nolol mugdiya. waa ku mahadsantihiin daawashadiinna.